waxaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay soo gaaraan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaas oo kala Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle si ay uga qayb galaan shirka golaha wadatashiga qaranka oo la filayo inuu si rasmi ah ugu furmo magaalada Muqdisho maalintii berri ah. Shirkan ayaa lagu wadaa inuu noqdo mid muhiim u ah arrimaha horyaala dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, gaar ahaan dhamaystirka arrimaha doorashooyinka, dastuurka iyo amniga guud ee dalka. sidoo kale waxaa shirka lagu lafguri doonaa khilaafaadka siyaasadeed iyo hanaanka wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Shirkan golaha wadatashiga qaranka ayaa waxaa ka maqan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe laguma casuumin shirkan, arrintaas oo la aaminsan yahay inay ka dhalatay khilaaf siyaasadeed oo horey u jiray kaas oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Puntland ayaa si cad u diiday inay ka qayb gasho shirka golaha wadatashiga qaranka iyadoo ku eedeysay dowladda federaalka Soomaaliya inaysan ixtiraamin habraacyada federaalka iyo faragelin ay ku hayso arrimaha dowlad goboleedyada. Mowqifka Puntland ayaa sidoo kale salka ku haya khilaaf siyaasadeed oo muddooyinkii dambe sii xoogeysanayay iyadoo maamulka Siciid Deni uu dhaliilay hanaanka hogaamineed ee dowladda federaalka gaar ahaan dhinacyada wadaagista awoodda iyo maamulka kheyraadka. Shalay waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray hogaamiyaha maamulka ICC Qaatumo Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye waxa uu xalay kulan u la qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Kulankaasi ayaa la sheegay in diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee ICC Qaatumo, kaalinta ay maamulkaasi ku yeelan karaan hanaanka siyaasadeed ee dalka, ammaanka gobolka Sool iyo wadahadallada socda. Shirka golaha wadatashiga qaranka ee beri ka furmaya Muqdisho ayaa ah mid aad loo sugayo iyadoo uu ku soo aadayo xilli dalka uu wajahayo xaalad adag oo dhinaca amniga, siyaasadda iyo doorashooyinka. Go'aamada ka soo baxa shirka ayaa la filayaa inay saameyn toos ah ku yeeshaan jihada siyaasadeed ee Soomaaliya bilaha soo socda ee aadi doonto. Lama soo oga in shirka uu beri furmi doono inuu dib u dhici doono.